Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabteena qaaliga ah oo nagu xiran channelka Musaabiriina. Kusoo dhawaada asxaabteena qaaliga walaashin Musaabiriina channelkeeda. Asxaab waxaan rabaa maanta inaan sameeyo haddii ilaahay idmo jabaati shawaarmo ama jabaati dhexda geliyay qudaar iyo hilib. Maasha Allah asxaab sharafta leh. Waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. Asxaabi haddaan bilaabayna haddii ilaahay idmo daawasho wacan. Soo dhawaada insha Allah. asxaabi haddaan rabnaa inaan sameyno hadii ilaahay halkaad waxaa ku diyaarsan hilibka aan ku sameynayo shawarmada. Hilibku waxa weeyaan waa chicken steak ah. waxyaabihi aan ka sameyn lahayn dhan oo dhammaystiran halka inoo yaala asxaabteena qaaliga. Maasha Allah waa soo diyaarsanay dhammaantood. Marka hadda waxaan rabnaa inaan ku dardarno xawaajiyadii iyo waxyaabihi aan ku carfi lahayn hilibka. haddii ilaahay idmo daawasho wanaagsan asxaabta sharafta leh. asxaabey soo dhawaada. hadda waxaan ku darayaa xawaaji masale caadi ah. hal qaadi wax yar aan ku daray. waxaan kaloo ku darayaa barbarooniga shiidan oo paprika loo yaqaano. hal qaadi wax yar ku darayaa haddii ilaahay idmo. waxaan kaloo ku darayaa haddii ilaahay idmo cusbo yar cusbo ah. waxaan kaloo hadda ku daray maraq digaag shiidan oo hal qaado camal ah. asxaabi hadda waxaan kaloo ku darayaa khalka caadiga ah cunto lagu cuno 2 qaado khal aan ku darayaa. ama liin dhanaan ka haysta ku darsan kartaa. hadda khal baan ku daray. wax yar baan rabaa isku soo walaaqo haddii ilaahay idmo si isu dhex galaan. si fiican in isu dhex galaan baa fiican. asxaabi hadda gacanta si fiican ugu soo walaaqayaa si isu dhex galaan haddii ilaahay idmo. masha Allah ujeedaan asxaabi saan soo walaaqay. asxaab sharafta leh hadda waxaan rabaa inaan daboolo. wax yar baan daboolay waxaan rabaa si fiican isku soo huraan. waan ku soo laabanaa insha Allah. masha Allah asxaabi hadda waxyaabo kale rabaa inaan sameysano. waxyaabihi kale hadda bilaabeynaa. hadda burkii baan halka kusoo shubay aan ka sameyn lahaa shawarmada. aduu qiyaas inta ku filan. qof walba inta ku filan waa qiyaasan karaa. hadda waxaan ku daray hal qaado sonkor ah. 2 qaado sonkor hadda ku daray asxaabey. waxaan kaloo ku daray haddii ilaahay idmo saliidda caadiga cuntada lagu kariyo. waxaan ku daray ujeeda hal qaado wax yar. intaasaa ku filan. hadda waxaan ku daray asxaabi cusbo yar. xoogaa waan isku walaaqayaa. markaa kadib haddii ilaahay idmo waa soo xasheynaa gacanta ku soo xasheynaa. biyo qandac ku soo xasheeyaa haddii ilaahay idmo. masha Allah waxaan filayaa inaad ka faa'iideen. asxaabi hadda waxaan rabaa inaan soo xasho haddii rabbi idmo. gacantaan ku soo xashayaa. markaan dhammeeyana insha Allah waa isku soo laaban doonaa haddii rabbi idmo. waan si fiican u soo xasho.
oo ujeeda hadda gacantan la galay waana soo dhameynaya insha allah. maasha allah asxaabta qaaliga ujeedan saana usoo xeshay burkii waa diyaar waana daboolayaa haddii ilaahay wax yar kadib waan kusoo laaban doonaa 30 daqiiqo kadib insha allah. waxaan diyaarsanaynaa waxyaabihii dhexdaan ka gelin lahayn shawarmada. asxaabteena qaaliga soo dhawaada ka faa'iidaysi wanaagsan. asxaab ujeeda hilibkiisaan kusoo baxay maasha allah sida quruxda uu kusoo baxay xogaa uu soo huuray haddana waa shiilanaa haddii ilaahay idmo. hal xabo basal hadda halkaa kusoo shubay aan soo jarjaray maasha allah waxaan rabaa hilibka inaan kusoo shiilo. asxaabteena qaaliga ka faa'iidaysi wanaagsan maasha allah soo dhawaada. waxaan kasoo tuuranaa bahal shawarma ah maasha allah faraha la isgoonsan doona insha allah asxaab idinka ka heli doona. ujeedana asxaabi basashan soo shiilaya kadibna hilibkan ku darayaa. asxaabta qaaliga hilibkan waxaa weeye waa owl horaan idinku sheegay waxaa weeye waa chicken steak ah. waxaa ka dhigan kartaa hilibka caadiga xoolaha waa ka dhigan kartaa. waxaa ka dhigan kartaa daarti chickenka waa ka dhigan kartaa qudaar kale waa ka dhigan kartaa wax kasta waa ka samaysan kartaa asxaabay khasab maaha chicken bas in laga sameeyo hilib waa ka samayn kartaa qudaar bas aa ka samaysan kartaa wax ay diidaysa ma lahan shawarmadu. maasha allah waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. asxaabi hadda waxaan ku daray kabsar iyo toon yar saana kusoo waday hadda ilaahay idmo. waxaan ka dhigaynaa maasha allah wax yaro qallalan oo shiilan qallalan laakiin aadna aan qallayl bilaan aan ahayn wax yar oo dhacaan dhacaan la ka dhigaynaa maasha allah saas rabaan kusoo waday ilaahay idmo. ka faa'iidaysi wanaagsan asxaabtana qaaliga sharafta leh markaan dhammeeyna asxaabi kusoo laaban doona insha allah. maasha allah asxaabi hadda waxaan kusoo laabanay burkii jabaati waan hadda kusoo laabanay waxaan rabnaa hadda inaan fidino haddii ilaahay idmo. oo ujeedan say usoo faxday maasha allah hadda waxaan rabaa inaan fidiyo haddii ilaahay idmo. waana kusoo riday waana soo cabirayaa maasha allah. waxaan usoo jarayaa in yaro qiyaas intaan ka samayn lahaa jabaatiga waan usoo jarayaa asxaabta sharafta leh ka faa'iidaysi wanaagsan. maasha allah jileec sooftii weeye. asxaabi hadda waxaan soo cabirayaa intii aan ka samayn lahaa in yaro qiyaas u jaraysaa in yaro gacanta ku filan baa jaraysaa saas rabaa inaan kusoo dhameeyo haddii ilaahay idmo. ujeedan asxaabi waa soo dhameynay haddana waxaan rabaa inaan fidiyo haddii ilaahay idmo. waa soo dubayaa insha allah saas rabaa inaan kusoo wado haddii rabbi idmo. hal mar unbaa fidinaysaa hadaa jeceshana 2 jeer waa isku laabi kartaa laakiin waxaa ku fiican tahay in hal mar la fidiyo si khafiif u noqoto. saas u fidinaysaa asxaabi ujeedaan maasha allah asxaabi waa soo fidin hadda waxaan rabaa inaan saaro birtii baa dabka ii saaran waxaan rabaa inaan soo dubo haddii ilaahay idmo. hadda waa soo dubayaa saana usoo saaray ujeedaan badda u horeysa weeye saasaan rabaa inaan kusoo wado haddii ilaahay idmo asxaabta qaaliga in yar oo saliidaan rabaa inaan kulmariyo. maasha allah asxaabteena qaaliga waa ujeedaan waa soo dhameynay shawarmadii waa soo dubnay saasaan halkaasaan kusoo diyaarsaday. haddana waxaan bilaabayaa waxyaabihii dhexdaan ka gelin lahaa baan hadda rabaa inaan bilaabo haddii ilaahay idmo. hal xabaan soo diyaarsanayaa hal xabaan halkan soo saaray jabaati ah waxaan rabaa inaan mariyo hal qaado mayonees ah. mayoneeska haddaad haysan waa iska dayn kartaa. hadda waxaan mariyo mayoneeskii kadibna waxyaabihii kale dhexda ka saaraynaa asxaabta sharafta leh saas ugu ballaarinaysaa geesaha dhan baa ka gaarsiinaysaa si
si hadhow jilic u noqoto marka la cunayo. Shawarmada ma fiicnin aad u adag tahay oo qofka dhibayso markuu cunayo. Asxaabta waxaan soo qaaday hilibkiisa ku soo baxay maasha Allah. Waana jilicsan yahay, waana bisil yahay. Saas halka ugu safaysa dhexda si leen dheer ah. Kadibna waxyaabii kala dhama saaraysaa. Inta ku filan aadna uga badin isaga kala daadan. Asxaabta waxaan saaray waa yaanyadii. Yaanyaan soo jarjaray si dheer u soo jaray. Waan soo fiiqay. Barbarooni iyo basal. Waan si dheer ayaan u soo jarjaray. Waxaan ku xijinay waa baradho jibsi ah. Waan soo shiilay iyadana. Saas ugu safaysa dhexda. Buux in laga dhigana ma fiicna. Suus u kala daadanaya haddii aad buux looga dhigo. Waxaan ku xijinay waa salarkii. Saas ugu safaysa. Masha Allah. Asxaabta waxaan kor ka samaray waa yaanyo aan soo dayaayada bilaashan soo shiilay. Soo kariyay. Haddana haysan khasab ma ahan inay samaysid inta ku filan tahay. Masha Allah saas u laabisa. Saas u soo duubeysa. Waxyaabii ka daatana waa ku celinaysa. Masha Allah ujeeda saas u soo duubay. Saas qabsanaya isku dhagaya. Waan shiilsanta jabaati marka hore aad bajilic u ahayd. Marka waxaan soo qaadanayaa hal xabo istakiin ah, laba xabo istakiin ah. Saas ugu midaysa saas u si kala daadan. Masha Allah saas u sameynay shawarmadii. Hal xabo shawarma diyaarsan. Masha Allah asxaabta qaaliga u jeedna soo diyaarinay shawarmadii. Masha Allah saa qurux badan ku soo baxday asxaabteena qaaliga sharafta leh ka faa'iideysi wanaagsan. Markaan soo diyaarinay saa qurux badan bay noogu soo baxday. Waxaan rajaynayaa idinkuna ka faa'iideysan doontaan oo samayn doontaan. Asxaabta nagu cusub xalanay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada. Waxaan idinka tagayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.